navigation استعماليسي يا بري مركبة لا راعي جري لا لوجين جري لا سعين جري يا شي هذا direction بايكوسينا سا ماشي هذا السعودي ورياضهن هلو وقومي حور حيل جديد وأنا جي صو لابتي مات كفي عندهن أوكي سو إمي كانوا شاكدي مسك قصاب سنايد أدمينا يا hopefully then وحبات كفهميسي ماذا هنتين marka aynu ku bilaawno office iyo office iyo maskan baynu ka hadlaynay marka shakadaasi caafimaadkayna gelinaysaa healthcare waxa la yidhaaho physician medicine iyo meelahaas ayna geynaysaa so videoyadii horan soo dhigay meesha waxaan idhi nin CEO ah oo de maxaa la yidhaha healthcare iyo insurance healthcare groupka ugu weyn adduunka CEO ka oo maamula ayaa xalay toole New York City lagu toogtay xalay ma ahayn subaxii shalay toole subaxii 7 inta la gaadhin isagoo meeting u socda ayaa la xabad maaragtay dhabarka laga geliyay ma fahanteen so assassin baa lagu sameeyay waxaana la ogaaday insurance-kiisa maaragtay magtiisu inay 15 milyan ahayd ma fahanteen so maxaa la yidhahaa kuwii xaqdaro ku heshiiyey xaqay hadhow toole isku laayaan soo maaha so iyagun baa islaayay so wuxuu ahaa caafimaadka insurance company iyo groupyadan healthcare group maxaa la yidhaha caafimaadka maaragtay dadka ka iibisa oo dee 100 jeer baaba maxaa la yidhaha maxkamad la geeyo oo la suugareeyey oo se u dhaqmayaan iyo dadka xitaa inay dhacayaan oo xitaa dadka qaarkood ku idhaaheen group ka mid ah inay dadka ku idhaaheen haddii aad operation garaysid oo suuxis aad u baahan tahay anesthesia haddaad u baahan tahay oo dee waqtigii lagugu talagalay lacagtaada ay ku ekaato operationkiioo la wado ayaa de operationkiioo la wado hadday suuxistii kaa dhamaato mid kale laguma siinayo waa inaad lacag extra bixisid marka adduunku saasuu noqday wax kasta waa laga baac mushtareeya ma fahanteen waxaan soo xasuustay mahmahdii oranaysay maxay ahayd mahmahdii oo hore Soomaalida tiraaha raggu magaca guud iyo magta way ka siman yihiin anigu waxaan ku dari lahaa rag iyo dumarba magaca guud iyo magta waa laga siman yahay ma fahanteen ragguna 9 bay ku dhashaan gabadhuna 9 bay ku dhalataa marka saacadu markay taagan tahay sidii xawiye aadanba labadooda ayaa jannada iska soo saaray soo maaha way isqaban waayeen marka kulligiinba magta iyo magaca guud waad ka siman tihiin haddaad bini aadan tihiin ma fahanteen marka heblaayo waa gabadh weeye yaan lagu gafin waxaasi waa beenbeen iyo bug iyo ismaaweelin weeye ma fahanteen rag iyo dumarba qofka khaldan iyo qofka saxan way iswada garanayaan habeen iyo maalina anigu waan ku seexdaa kusoo toosaa inaan dhimanayo in la xisaabinayo laakiin qaarkiin waad ilowdeen taa ma fahanteen healthcare-ka iyo dee sheekadan caafimaadka ku saabsan baynu ku hadlaynaaye midii ugu weynayd Soomaalida maxaa la yidhahaa the biggest grave dodger oo 100 sano imika ku dhowdhow adna aadan iyo dhakhtarkeeda saacadaadiiba adna taagan waad is ilowday toobadu way ku furnayd ba waad is ilowday ma fahantay ku seexo ku soo toos aynu ku socono sheekadii maaragtay ku saabsanayd office office waa office way waa wax la ofinayo ma fahanteen Greek mythkii baan kasoo sheekeeyay figure astaan u taagan caafimaadka physician iyo healing bay ku saabsan tahay Asclepius waxa la yidhaahaa Asclepius baa la yidhaha Asclepius xagana kusoo qoraya oo wuxuu lahaa gift ama dee maxaa la yidhaahaa hibo dadka inuu maxaa la yidhaha hiil gareeyo Soomaaliya hiilintu maxay noqonaysaa oo waxa la yidhaahaa downfallkiisii taasay noqotay wuxuu ku jabayba waxay noqotay inuu dadka dhintay soo nooleysiin jiray oo de waa sida sheeko xariirku ay u dhigayaan ma fahanteen maadaama isagoo astaan u ahaa daweynta dadka uu dad badan daweynayay Zeus bay yidhaahaan marna Zeusna Saturn buu noqonayaa Soomaaliyahaan inagu waxaynu naqaanaa raage kii raagay 100 sanaba mar baa la is xisaabinayaa si fiican adduunka ma fahanteen saacadaasna baaba taagan imika
waqtigaas saacadaas baaba taagan imika oo waxa la yidhaahaa Zeus baa xanaaqay markaasuu hilaac kusoo riday oo saasaa lagu dilay oo markaasaa boos cirka loogu sameeyey waa sheeko xarir kasta loogu tabinayo sheekooyin kasta baa dadka loogu sheegaa maxay ahayd maogtahay curyaankaba xaga looma waayine cayn baa sidaa loo yidhi ma fahanteen waxbaa lagu fahansiin marka boos baa dee Ophiuchus maaragtay oo xidigtiisa ugu maxaa la yidhahaa nuurka badan waxaa la yidhaahaa alpha Ophiuchi baa la yidhaahaa waa constellationka ama meeraha dee maska weyna xidigtiisa ugu nuurka badan oo de laba weji leh ayaa waxaa la yidhaahaa alpha Ophiuchus alpha Ophiuchi marka waxa weeye astaan u taagan miisaanka balanceka dee labada wejiye nooluhu leeyahay ama labada dhinac life and death hadday tahay cilmiga iyo garaadka dheer iyo labada dhinaceed the medicine ama dawadu leedahay harm iyo good soo maaha marka waxay ku saabsan tahay waxaanay dhahaan renew iyo transformation isbedel sheeko isbedel baa socotay wax ma isbedeleen mise tabtii unbaa lagu socdaa marka alpha Ophiuchi waxaa loo yaqaana af carabi baa magacan loogu bixiyay oo during the Islamic golden age ayaa astrologygii muslimiintu qoreen waan ii sheegay the past the future the present isku mar bay dhacayaan waqtiga sida loo qoray unbaa dadka qaarkood ku lumaan ma fahanteen marka waa af carabi oo waxaa la yidhaha ras alxaq oo halkan maxkamadda Den Haag ku taala the Hague loo yidhi Hague waa maxay waa the truth waa xaqi weeye Den Haag Den Haag ras alxaq marna waxaa loo yaqaanaa the head of the truth madaxa runta marna waxaa loo yaqaanaa the chief of truth chiefkii runta marna waxaa la yidhaahaa af carabiga ras alxaq ama de ras alxawa xawana waa maska laga hadlaya serpent maska weyn head of the serpent charmer baa la yidhaahaa oo waxay ku taalaa atmosphereka marka laba loo kala gooyo de waxaa jira northern iyo southern hemisphere northern hemisphere bay ku taalaa waqooyi ma fahanteen waxa weeye very bright star alpha Ophiuchi aynu ka hadlaynaa waxa weeye very bright star oo waqti badan maaragtay qarniyo centuries ayaa loo isticmaali jiray navigationka qiblada navigationka oo waxaa isticmaali jiray sailors badmareenada marineerka dadka dee travel gareeya markay guurayaan reer guuraa soomaalidii hore waa xidigahay eegan jireen dee dhinacuu ka xigo northku iyo astronomers de adduunka placekaad ka taagantahay meesha taagantahay direction bay ku siinaysaa ma fahanteen oo waxa weeye xidigis dee si fiican aad uga arkaysid xidigis aad si fiican u isticmaali karaysid markaad navigation isticmaalaysid berigii markabada la raaci jiray la lugeyn jiray la socon jiray jihadaada direction bay ku siinaysaa meeshaad u socotid